waxaan xog buuxda idinkaga hayaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ku fikiraya arrin ka yaabi doonta maskaxdan aan gali doonin waa maxay arrintaasi sida ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta dalkaasi Kenya ayaa waxa la sheegay in madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta uu qorsheynayo in uu xogaa ka dabco go'aankiisa ku aadan muranka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya. Uhuru Kenyatta ayaa la sheegay inuu qorsheynayo in maxkamadda uu geeyo arrin la xiriirta inuu qaybiyo qaybta isku hayaan Soomaaliya iyo ayaga maadaama ay yihiin laba dowladood oo walaalo ah. Uhuru ayaa dhanka kale la sheegaya in qorshahan uu la kaashan doono siyaasiyiin saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliya arrintan ay ka dhaadhicin doonaan si uu ogolaado madaxweynaha talada haya ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo taas oo qayb ka noqon doonta haddii la isku fahmana lagu soo afjari doono muranka badda ee waqtiga badan qaatay u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. arrintan ayaa si weyn loo hadal hayaa warbaahinta Kenya gaar ahaan kuwa gudaha ayaa si weyn arrintan u falanqeynaya kiiska maxkamadda waxaana siyaasiyiin Kenyan qaarkood ay sheegayaan in Uhuru Kenyatta uu yahay shakhsi riyoonaya oo aysan suurtagal ahayn arrintan markan Uhuru Kenyatta uu ku riyoonayo ee in la kala qaybiyo biyaha ay ku murusan yihiin labada dowladood. bisha November 4 ayuu qorshu yahay in maxkamadda Hague cadaaladda ay wada tagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya halkaas ay hortaalo kiiska dacwadda badda ee labada dowladood waxaana markaa wixii ka dambeeyay la fili doonaa ama la sugi doonaa natiijada maxkamadda.